السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودyaal kusoo dhawaada warbixino ku saabsan dagaalka ka socda dalka Itoobiya. Bayaana ka soo baxaya hay'adaha gargaarka ayaa ku baaqaya in sida ugu dhaqsiyaha badan si ku meel gaar ah xabadda loo joojiyo gobolka Tigray si ay ugu suurtagasho in la gaaro dadka rayidka ee uu dagaalku saameeyay. qaramada midoobay ayaa doonaysa in la sameeyo tub gargaar bini'aadanimo loo mariyo dadka uu saameeyay dagaalka labada toddobaad u dhexeeyay militariga federaalka Itoobiya iyo xogaga Tigray. boqolaal qof ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay dagaalada ka socda dalka Itoobiya ee gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya. Jimcihii waxay sheegtay dowladda Itoobiya in ciidamadu la wareegeen magaalooyinka Aksum iyo Adwa. Dowladda ayaa sheegtay in xoogagii ku dagaalamayay magaalooyinkaasi ay isdhiibeen, hase yeeshee sheegashadaasi ma jirto cid ka madax bannaan oo xaqiijin karta maadaama ay isgaarsiinta iyo internetka gobolkaasi uu toddobaad uu ka go'an yahay. magaalada Aksum ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn gobolka Tigray, halka magaalada buuraleyda Adwa sidoo kale lagu tilmaamo magaalo istiraatiiji ahaan muhiim ah. Horaantii toddobaadkan ciidamada dowladda dhexe waxay la wareegeen magaalooyinka Shire iyo Raya. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in ciidamadu ay iminka ku sii siqayaan caasimadda Tigray ee Mekelle. dowladda Itoobiya ayaa ilaa iyo imika diidan baaqyada ku saabsan in labada dhinac ay khilaafkooda wada xaajood ku dhameeyaan. dagaalkan iminka socda ayaa ka dhashay xiisado muddo dheer ka taagnaa labada dhinac.